waxaan ka hadlayaa saaka gobolka Buuhoodle iyo Qurulugud shaqaaqooyinka had iyo jeer ka soo cusboonaada aad moodo inaan hawl badan ku bixin ama aan la isku taxallujin sababtoo ah waxaad moodaa labada beelood ee halka degaa inaanay tashan ama aanay isu iman beesha Axmed Garaad iyo beesha Solomadow oo deegaanka dega Buuhoodle dal ahaan iyo dad ahaanna isku mid ah oo meel ka soo wada jeeda had iyo jeerna soonaha Qurulugud iyo Buuhoodle u dhaxaysa dacdooyin argagax iyo naxdin badan ay ka dhacayaan taas oo aad moodo in la dhayarsanayo waxa qabadkeeduna sida hadii wax laga qabanayo ay fududahay islaam baa waxa laga hayaa inanteedii iyadoo canaanaysa ninka qabaynanta waxay oranaysaa oraha ninka xooggaali inanteeda kama dhali waayin ayaa laga hayaa sodohaha Soomaalida kamid waxaan uga jeedaa Axmed Garaad iyo Solomadow 25 kiiloomitir ama 30 kiiloomitir oo Buuhoodle iyo Qurulugud u dhaxeeya nabadgelyo kamay dhigi kari waayin ee talow maxaa jira waa ninka xoogga weyn leeyna taleeyay uu ka dhali waay waa hamranayaan waxaan leeyahay oo ku baaqaya waan soo jeedinayaa beesha Axmed Garaad iyo Solomadow inay shir isugu timaado shirkaas ay kaga tashanayaan aayaha gobolkooda wadadka kale iska daaya Axmed Garaad iyo Solomadow ma Qurulugud iyo Buuhoodle dhexdooda oo 25 kiiloomitir iyo 30 kiiloomitir aan ka badnayn oo maalin walba argagax ka dhacayo dilal foolxumi ka dhacayaan ayay u taag heli waayeen waa maya waxaan qabaa hadii loo soo jeesto in arrinta aad iyo aad wax looga qaban karayo ayaan aaminsanahay maalin walba waxa lagu dilayaa soonaha birimageydo wax garad aqoon-yahan birimageyda marka la leeyahay marka la soo ururiyo dad birimageyda ah oo aan waxba galabsan ayaa maalin walba soolaha ku dhimanaya oo caruur leh oo qof aan waxba ogeyn xoolihiisa la joogay sidii dilalkii ugu dambeeyay hadeer dhacay oo kale uqaasha iyo wax garadka Buuhoodle ee habeen hore hadlayay waa mahadsan yihiin way soo tacsiyeeday war wanaagsanna way sheegeen wasiirkii hore ee xagla toosiyay iyo wasiirka hadda wasiir Qambina iyaguna si wacan bay u hadleen oo sharaf leh oo karaamo leh ayay iyaguna u hadleen waa ku mahadsan yihiin laakiin miyay inagu filan tahay tacsi waxaynu u baahannahay inaan wax qabad sameeyno oo aynu soo qabanno gacan ku dhiglayaasha maalin walba dadka ehelka ee dhaleeyada ah laynaya inaynu soo qabanno ayaa wax qabad ku fiicnaan lahaa sababtoo ah hadii gacan ku dhiglaha aynu qabanayno soonahaasi nabadgelyo noqon lahaa laakiin inta gacan ku dhigluhu xagga dambe inoo fadhiyo birimageydadana la laynayo waxa weeyaan nolosheena aakhiro iyo teena adduunyaduba waxay ku sugan tahay lama garanayo dad baynu nahay ummad baynu nahay wax garad badan baa inaga buuxa wax kastaynu qaban karnaa waxaynu qaban kari laanahay waa Axmed Garaad iyo Solomadow 25 kiiloomitir oo Buuhoodle iyo Qurulugud u dhaxeeya inaynu nabadgelyo ka dhigno maxaa loo waayay waxa kaliya ee ku filan waa gacan ku dhiglaha oo qolo waliba qabato hadda qolo qura ma sheegayo qolo waliba iyadoo gacan ku dhiglaha qabata oo soo dhiibta ayaa halkaas ku islaaxaysa nabadgelyana ku noqonaysa wax qabadkana waa taa laakiin tacsi dadku haday ku tacsiyeeyaan waa okay odayaasha iyo intii ka hadashayna waa u mahad celinayna laakiin kuma filla inaynu tacsi u taagnaano iyadoo birimageydadii maalin walba la dilay waxaan ku baaqayaa Axmed Garaad iyo Solomadow inay shir isugu yimaadaan ay kaga tashadaan gobolka Buuhoodle aynu wada degnaa waynu wada leenahay waa inaga dhaxeeya waxay uu naga deeqayaa aynu ku wada joogi karnaana waa nabadgelyo sidaa darteed waxaan ku celcelinayaa in dib la isugu noqdo shir la isugu yimaado beeluhu iyaga oo hagar baxsan wixii horena laga xaajoodo waxa dambana meel looga soo wada jeesto gacan ku dhiiglaha xagga dambe fadhiyana marka odayaashu tacsida soo dirayaan gacan ku dhiiglihiiba xagga dambe fadhiya waxa weeye ma waxaynu dhaqanaa gacan ku dhiiglayaasha mise waxaynu dhaqanaa
oo u turnaa dadka birmigeydada ah labadaa keebaynu dhaqannaa birmigeydadaynu dhaqanaynaa gacan ku dhiigana waa qabanayna kaasaa dalka iyo dadkuba ay magaranaysaayay wanaagooda ku jira innagana wanaageenu ku jira waxaan ku celinayaa axmed garaad iyo solomadow in ay ka tashadaan maalin walba dilkan argagaxale ee dhacaya isaga yimaadaan gacan ku dhiiglahana qabtaan bes intaasaa ku filan gacan ku dhiiglaha oo la soo qabto ayaa nabadgelyadan xilaya oo ku filan wax kale uma baahnid ciidana qixi mayso ciidana guuri mayso wadana xidhmi mayso haddii la qabto gacan ku dhiiglaha intaa taasaan kaga gudbayaa kolley gacmo badan baa ku jira Soomaaliya xagga dambe inaga waraabinaysa cadow badan baa dalkan iyo dadkan leeyihiin inaynu meel ka soo wada jeedno midowna ayaa loo baahan yahay Soomaalina waxaynu wax la qabsan karaynaa marka Soomaaliland mid tahay maxay yiraahdaan reer koonfureed oo Soomaaliya la yiraahdana halkan Soomaaliland baa la yiraahdaa halkaana Soomaaliya la yiraahdaa Soomaaliland iyo Somalilandna waxay wax wada qabsan karaan oo isu iman karaan oo isfahmi karaan marka qolo walba nabadgelyadeeda ka shaqeyso Soomaaliya waxaynu ognahay anigu dhowr jeer waxaan idhi Soomaaliya xamar waxa ku dagaalamaya kalluunkii iyo badda iyo kalluunka keebaa lagu nool yahay kalluunku baddu ku nool yahay laakiin baddu kalluunka kuma noola xamar waxa ku dagaalamaya oo isku haya kalluunkii iyo baddii baa isku haya marka dalbadaas hadday dagaalamaanna ka adkaanaya waynu garanaynaa kalluunku hadduu badda la dagaalamo waxa weeyaan oo ay badda iyo kalluunku islaayaan maxay yiraahdaan macquul ma noqonayso inuu kalluunku adkaado macquul ma noqonayso haddii xamar waxa isku haya kalluunkii iyo baddii baa ku dagaalamaya qolada mucaaradkii waa baddii dalkay wax ka qaban karaan waana u dhasheen qolada xukuumadda haddeer Soomaaliya hogaaminaysaana waa dad dibad ka yimid dalal shisheeye ka yimid marka halkan waa baddii baa la oran karaa taana waxaan ku baraarujinaynaa reer xamar ama dadka u dhashay Muqdisho inay magaaladooda nabadgelyada ilaashadaan oo xukunkana gacanta ku qabsadaan dadkan dibadda laga keenay 4 sano la doortay dawladnimadii 4 sano loo doortay 4 sano markay dhamatay in iska tagaan baa la doonaya qolo waliba in 4 sano markay hayso iska tagtaa la doonaya qolo waliba in qolo dhaxashaa la doonaya ka bacdi Soomaaliya saasay caalamka ula qabsan karaysa laakiin Soomaaliya iyaduna isuma roona annagana nooma roona iyagu ma isuma roona oo mar walba waxa imanaya kuwa qabqablayaal dagaal ah diyaaradda xamar laga qaaday hadda ciidanka gadal laga rogayo iyagoo aan dhulka mari karaynin waxa la oran karaa wax xasarad raadis marka dadkan xasarada wada ee Soomaaliya hadda xukunkeeda haya si degdeg ah xukunka waa inay u wareejiyaan hadday taasi dhici weydo de kalluunka iyo baddii umba dagaalamaya haddii kalluunka iyo baddu dagaalamaana de badda adkaanaysa dadka reer xamarka ah ee Muqdisho u dhashay ee wax walba leh ee halka ku nooli waxa weeye waa baddi weeyaan kuwa dibadda laga keenay ee 4 sano loo doortay ee haddeer isku sii dhajinayaan kalluunkii bay noqonayaan marka baddu kalluunka iyada haysa marka insha Allah xukuumadda farmaajana waxaan kula talin lahayn oo taladu tahay inay dalka xasarada ka daayaan si Soomaaliya Somaliland u wada hadasho oo ay u heshiiyaan inta calqaladaasi halka ka socotana Soomaaliya Somaliland waxba isla ma gaari karayaan meel gubanaysa iyo meel degan waxba isla ma qaadan karayaan marka insha Allah taala dagaalada shubooyinka ka dhacaya iyo dagaalada xamar gudaheeda ka dhacaya iyo siyaasad xumada reer koonfureedka iyo xamar haysata iyo waxa soo dhan waxa uu leenahay Ilaahay idin ka dul qaado laakiin inaad tashataan wax qabsataan baa la doonaya khusuusan waxa la doonaya dadka reer Muqdisho inay wax qabsadaan oo dadka kubadda ku ciyaaraya ee meel shisheeye ka yimi ay iska qabtaan taasa loo baahan insha Allah taala anagu ka Soomaaliland ahaan horumar baanu gaarnay waxaanu ku gaarnayna waa talo waxaanu ku gaarnay waa nabadgelyada waxaanu ku gaarnay waa urursiga waxaanu wax ku qabsanay waa nabadgelyada iyo isfahanka Soomaaliya waxa looga baahan yahay inay Soomaaliland ku dayato oo ay danaheeda ka tashato taasa lagu gaari karaa horumar wanaag iyo maxaan ilaahdayay iyo maxaan ilaahdayay wax wada qabsi sida darteed marka taasi dhacdo Soomaaliya waa dad walaal ahaan jiray haddeerna walaal ah laakiin ay ka dhaxayso talo sababtoo ah Soomaaliya maxay isu keenay dad iyo dal baynu isku darsanay inagoo kala gooni ah ayaynu dal iyo dad isku darsanay waxa weey reeruhu hadday geel isku darsadaan
oo ay geelasha waa la isku daraa marmar baa beeluhu geelasha isku darsadaan haddii markii geelo la isku darsaday mowqifkii laga lahaa la soo ama abaartii laga soo noqday ama darantii laga soo noqdo ama doogii laga soo noqdo haddii la yidhaahdo reeraha qaar yahaan geela kala sooci maayo ka waran hadday reeraha qaar yidhaahdaan geela lama kala soocayo ka waran waa mashaakil ninka la yidhi geelaagii baa la istaa garma qaadanaya dood ma yeelaya maslaxaad ma yeelaya geelaagii waxa weeyaan la sii dayn maayo ma aqbalaya Soomaalidu waxay ahayn dad isku darsaday wax oo sidaa laba beelood oo geel isku darsatay oo kala yahaayeen laba beelood haday geel isku darsato markii dambe way kala socdaan Soomaaliya iyo Soomaaliland dad iyo dal bay isku darsadeen markii dambena way kala socdeen haddii hadeer la kala sooci maayo waa ninka la yidhi geelaagii waanu haysanaynaaye ayay noqonaysaa geelaagii waa haysanaynaa soo cilmayno saasay noqonaysaa marka ninka geeliisii la haystaana ee la yidhi soocan maysid haddii la aan garnaqsanno ma aqbalaya haddii la yidhaha aan kulaaluushna ma aqbal geeli baaba laga haystaay marka Soomaaliland waxa weeyaan geeleedii way soocatay horta dingad baanay ku soocatay oo baryi mayso way haysataa laakiin waxa la doonayaa inaynu afka ka niraano Soomaaliland waanu ictiraafnay inaynu soo afkeeda soo marto Soomaaliland walaalaanu ahayn hadeerna waanu kala goosanay haddaanu doonana waa isku darsanayna haddaanu doonana waanu kala tagaynaa in saa Soomaalidu tiraahda ayaa la doonayaa inta ay xaaladdu tahay wargeela soocan maysaan iyo waanu soocanaynaa anagu wixii kasta yimaado diyaar baanu u nahay haddii dagaal lagu dagaalamay deegaanka waa ku dagaalamayna hadday dood noqoto deegaanka waa ku doodayna hadday magaranaysaa awood noqoto deegaanka awood baanu haynaa waa taanu ku soocanay aynu ku kala baxnay ciyaar kuma inaan kala bixin waxaynu ku kala baxnay awood cudud baan ku keenay xornimo cidina maysiin ay xaaladayadu ay ahayd marka insha Allah waxaan doonaynaa inaan wanaagga u soo noqono waxaan doonaynaa inaan khayrka u soo noqono waxaan doonaynaa si wacan oo wanaagsan u wada hadalno waxaan doonaynaa Soomaali si wacan loo dhaqo waxaan doonaynaa qolo walba dalkeeda inay si wacan uga tashato waxaynu doonaynaa inaynu horumar gaadhno waxaynu doonaynaa adduunka inaynu wax la qaybsano taana maxaa lagu heli karaa inagoo is-ictiraafna oo ka baxna waxaan caantaynka ah ee lagu jira hadda gada iyo Kismaayo dagaal la iskaga horkeenaya hadda dawladda hadda jirta xaaladaheeda waynu garanaynaa kuwii hore wax qasbi jiray maye ninka Soomaaliya casheeyay waxa weeye inuu dib u soo noqonayo u baahannahay aad iyo aad baan saxaafadan u salaamaya Soomaali oo dhan meel joogtana waa salaamaya